السلام عليكم أصحابتك وحرن كانال كان مانتي وعشر كلا عشر كنا وكان شان طبانات أما lesson 15 مانت عشر كنا محاسك برينا sports vocabularies أما إرياضة عيارها sports vocabularies إرياضة عيارها عشر كانوا حاوسو دياريي ضد إيقا عدسادي وحرن أصحابتي وحرن كميد أيا إرياضة ciyaaraha iga soo dalbaday marka hada kanaalkan ku cusub tahay fadlan subscribe youtube-kiisa saaro sida ula socotid casharada magaciisana waxa waaye English Somali Translation Hub hoos ayuu ku qoran yahay insha Allah waxa faa'iido doontiin ereygeena koowaad oo ciyaaraha waa ball waa kubad insha Allah waa ciyaaraha si kala faafahin doona ayadana football basketball intaas kulli waan si kala bixin doona ereyga koowaad waa ball kubad goal waa goal waa halka ciyaarta markii oo adii dhibcaha dhalinayo halka la iskaga dhaliyaa goal dhaha pitch waa garoonka kubadda cagta inta badan pitch waa garoonka kubadda cagta inta badan lagu ciyaaro court waa garoonka kubadda kolayga ama basketball meesha lagu ciyaaro garoonka lagu ciyaaro ayaa la dhahaa court English ahaan basketball kubadda kolayga basketball kubadda kolayga team waa kooxda ciyaartoyda oo hal team camal ka soo jeedo ama koox badan hal koox waa hal team oo 11 ka tirsan a player waa ciyaaryahan waa hal qof markuu yahay player dhihi markay badan yihiin team ayaa dhihi player waa ciyaaryahan soo sawiradan maxaa u soo qaatay sida ay ugu fududaadan referee waa garsoore ciyaareed ama dhexdhexaadiya ninka oo control ciyaaraha red cardkii waxaas ka ararka bixiyo ama ciyaaraha qofka oo kor ka fiirinayo goolka ku dhex jiro ama garoonka ku dhex jiro ayaa la dhahaa goal and yellow card waa kaarka jaalaha kaarkana maxaa qofka la siiyaa marka loo digayo ama caution card ayaa la dhahaa caution card waa kaarka digtaanka yellow card markii ciyaaryahan la siiyo waa loo digay qaladkii koowaad oo galay waa loo diga kaarkaas la siinaa waa yellow card kaarka jaalaha yellow card green card kaarka cagaaran kaarkana maxaa ciyaaryahanka la siiyaa markuu uu yellow card la soo siiyay oona loo digay mar hore waa laga bixinaa marka laga bixiyana ciyaaryahan kale oo fadhiyay oo back up camal loo isticmaalayay ama intuu difaac camal loo isticmaalayay ayaa lagu wareejinaa hadii mar ay teamkaas ciyaaryahan kale loogu wareejinin green card lagu siina adiga waa bixi marka baxayd ciyaaryahankan kale lagu soo wareejinaa green card waa fahansantiin oo malaha ciyaaryahan red card waa kaarka gaduudan kaarkana maxaa la siiyaa ciyaartooy ama ciyaaryahan
oo la ciqaabayo uu qalad weyn galay markuu ku dhex jiro garoonka ciyaarta kubadda cagta badanaa marka la ciyaarayo ayaa la siiyaa. Marka kaarkan marka lagu siiyo qofna laguguma bedelayo, kooxdaadana hal qof ayaa ka dhinaanayso. Aan dhahno 11 ahaydeen, adiga lagaa bixiyay 10 ayay kusoo harayso. Penalty waa rigoore ama ciqaab. Penalty qaybta sportska haddii loo isticmaalo ama footballka ama kubadda cagta loo isticmaalo maxaa la dhahaa rigoore. Rigoorahana waa ciqaab xadgudub sharciga kubadda cagta oo ahay ayaa xadgudubtay, marka rigoore ayaa la siinayaa tiimkan. xadgudbe moohe tiimka kale ayaa rigooraha la siinaa. Penalty area waa aaga ciqaabta. Penalty area ama aaga ciqaabta maxaa laga wadaa waa aragtina u maleeyaa meesha goolka oo goalkeeper joogo ama goolhayaha joogo, meeshan afar geeska gudaheeda ayaa la dhahaa penalty area. Marka hadduu goolhayaha meeshaas ka soo baxo oo banaanka soo aado ayaa la ciqaabaa, penaltiga ciqaabta la siinaa. Marka gudahaas afar geeskaas dhexdeeda ayaa la dhahaa penalty area. Marka gudahaas haddaad ka soo baxdid ciqaabta lagu marsiinaa oo tiimka kale ka faa'iidayaan.